بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 759 عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة وسؤال النجاشي رضي الله عنه لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، والنهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحسنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصوم. الحديث رواه أحمد والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 9kii bishii afraad rabiicu thaani sanata 1447 isla markaana waafaqsan 1dii bishii tobnaad sanadka 2025. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daraa almuntakhabu min saxiixi sunna nabawiya wa ziyaadaatuhu, qaybihiisii kala duwanaa, khaasatan qaybtan ugu magac dara shucabuliimaan, iimaanka iyo furuucda uu leeyahay. min shucabuliimaan waxaa ka mid a acmaasha ayaa ka mid a oo iimaanku tawxiid kaliya kuma eko. aliimaanu qowlun waictiqaadun wa camalun yaziidu bitaaca maartay wayanqusu bilmacaasi bale wayanqusu bilmacaasi. idan shucab aliimaan baanu ku jiray. xadiidkeennan maanta aan qaadanayna awalan intaana xadiidka u gudbin, waxaan ka cudur daaranhayaa shalay wuu naga baaqday oo talaado ahayd. maanta oo arbacaan qaadanayna, weliba maantana waa wakti dambe oo casarkii iyo duhurkii bay u dhexaysaa. waa duruufaha maaragtay nagu gadaaman baa kolba qayb ka qaadanaysa jaanis u helo maaragtay bay ku xidhan tahay. wuxuna waa maxaa weeyaan kolba waktigaan hello wey. marka dadkuna inay saa noogu raalli ahaadaan naguna qadariyaan baan aad u codsanhayaa, sababtoo tahay saad idinkuba aan dhammaanteen adduunyada oola daalaa dhacayna iyo duruufaheeda baan qayb ka nahay. marka waktigaan jaanis hellana waan soo diraynaa xadiidka. waktigii duruuftu noo saamixi weydana waad noo cudur daaraysaan insha allah. intaa markaan ka gudba xadiidkan, xaqiiqatan waa xadiid aad iyo aad cadiim u ah. axaadiistoo dhan iyadoo wada cadiim, taasna macaani iyo arrimo geesa ayuu xambaarsan yahay. xadiidkan inay keligii mar wakti muxaadaro laga dhigo, taariikhda uu ku fadhiyo iyo wuxuu ka sheekaynhayo iyo waxaasoo dhan waa hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam. hijratu saxaaba wey. awalu hijra oo saxaabadu ay baxaan bay ahayd, ardulxabasha loo baxay markii cadaadiskii iyo uu ka batay ciqaabtii iyo dhibaatadii ay nimankii mushrikiintii quraysh ee maka joogtay, dowladdii gaalada ahayd ee ka itaal ronayd muslimiinta aad u cadaadisay, wax jihaadna aan la farad yeelin, bay saxaabadu waxay dhaheen uma adkaysan karo. ardulxabasha oo nin maaragtay boqor caadila lagu sheegayo najaashi baan u kacaynaa bay dhaheen. halkaasay saxaabo badan aadeen. qaar familadoodii bay qaateen. cuthmaan bin cafaan baa ka mid ahaa, jacfar bin abi daalib baa ka mid ahaa, maaragtay cabdullahi bin jaxshi baa rag fara badan baa xagga aaday oo xaasaskoodii wata. marka umu salama baa ka mid ahayd dadka xaggaa u kacday, oo umu salama oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dambena zawjaadka rasuulka ka mid noqotay. xaggaasay aaday maaragtay aadeen saxaabadu. xadiidka marka qisadaasu xambaarsan yahay. hadda inagu qisada inaan ka sheekeyno xadiidku mayna keenine, waxaan u keennay min shucab aliimaan, iimaanka ajzaadiisa iyo furuucdiisa inay ka mid tahay alcamalu saalixi wadaacaat, sidaan wakti hore ku soo qaadanayba oo maaragta aanu cashirkeenna u dambeeyey uu ahaa aطahuuru shadru liimaan. aطuhuuru shadru liimaan aan ku soo marray iyo keyrkeedba, iyo wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum oo salaadii loo jeedo. qisada marka qisatu lhijra ilaa ardi alxabasha wa su'aali najaashiyi radia allahu canhu lijacfar bin abi aalib radia allahu canhu. wa fiihi xadiidka waxaa ku jiray jacfar bin abi aalib baa ka sheekaynayo najaashi buu u sheegayaa nabi maxamed iyo siduu ahaa. wa amaranaa wuxuuna amray nabigu calayhi salaatu wasalaam bisidqi alxadiid, hadalka inaan run ka sheegno, wa adaa'i lamaanati, ammaanada gudashadeeduuna amrahayaa,
وحقوق ذا أن قدنا خيامة إسكيلا لنو وصلة الرحم قرب حرير انت أيونا أمرها يا وحسن الجوار جيران وناك بنا أمرها يا والكف كاستاق بنا أمرها يا عن المحارم وحيابها محرمات كونو كاستاقنا والدماء ديقيالك حرامتا نغا إنا نكود عنو نغا مارتي نغا ريبها يا والنهانا وحاكلهم أيونا أمرها ياوي أمرنا وحونا أمري بصدق الحديث يعني هذا الكرمتا أين نشاقنو وأداء الأمانة أمانة قد الشدد وصلة الرحم قرابة حرير وحسن الجوار وناق مارت الجيران وناق أسمينتي والكف كإستاق عن المحارم والدماء لقيالك وحيوان محرمات كنا كإستاقنون أمرها يا والنهانا وحاكروا نقرب عن الفواحش فواحش ورمو نقرب مارت محارم بالله شيء هذا فواحش با جيس لو شيء والزنا دي زنا وخضورة إلى ذي قبح هذا جيس لو شيء والنهانا عن الفواحش زنا أيونا مارتي نقربي وقول الزوري هذا الكبنتا أما مخراتيك بنتا وأكل مال اليتيم أغون حوله عنيتانكود وقذف المحصنة وقذف المحصنة كبدا عفيفة قذف كذا كبدا عفيفة أو دورصون وإلهي سبحانه وتعالى كحرا إن الأفلقات دي سوء الزناءات كوكنتو والزانية أتراد وأمرنا محل شاهد كان وأمرنا وحاكروا أن أمرها النبي أن نعبد الله وحده إلهي كلينا نعابدنا ولا نشرك به شيئا عدنا أن لو ذاكين عبادات كيسا وأمرنا وحاكروا أن أمرها محل شاهد كان وهالكا بالصلاة صلاة والزكاة والصوم الحديث. إذن إخوتي في الله حديثكم هو حديث عظيم وي أحكام آذي أظفر ربضا أي جعفر بن أبي طالب كشيكي وقيب أي تاي نبي وحيابه أمرها وناقيالك أنت وحكوه الريو وشرحي لأن حديثكم عن صوت قاب سنة وحكوه الريو وشرحي إن سي دقان هان شيرين بختيين عوني شيرين فاحشة الزنا ذي سمين شيرين خمر يعبي شيرين كوذا حوق بدن كتبرت يرو كدو دلي شيري قاب ظلم يجور يوحى صردان إني كل رقم شيرين كدبنا إلهي النبي محمد أوسو صاري وحيابه وناقي النبي محمد أولي يمد بوحو كميدها أي وتريي رنت إنا نرنت كد ذالو نأمري شيري وحيابه نأمري شيري وحا كميدو نوسو كرلي أداء الأمانة أمانة قد الشديدة حقوق بني آدم أما قول أما وحي نقطبة يحق إلهي أمانة إنا نقودنو وحاكا لو نوسو بيريو نأمرها يصلة الرحم قرابة إنا نحرير نمدو يمد فوق با وحاكا لو نوسو كرليه حسن الجوار جيرانك وناق لو سميو وانا جيرانك آن لدبن وحاكا لو نأمرها يبقى محارمتي إنا كإستاقن محرمات كان اسكاقر جري وبختي كان عوني جري زندي حماتدي حد قدبكي marka waxa soo dhan inaanu ka istaagniyo dimaa iyo dhiigyaalka dhiiga dadka imaarta qofka daciifka la iska dili jiray iyo wixii la midka waxa kale oo naga reebi jiray faaxishada zinadu muntashir ba agtooda ka ahayd oo maka macruuf ah iyadoo naagaha jirkooda iibsada guriyay lahaan jireen oo calan ba u sugnaan jiray waa la garan jiray oo naagii xumaa iyo wixii la midka ahaan jireen marka faaxishada inaan yu naga reebi jiray inaan ka hadhno maarta naga reebi jiray wanahana aan alfawaahish sidoo kale qowl az-zur هذا الكبنتا أما مخراتية بنتا مخرات بيناله إن شهادة زور سميس أما قول زور أتكوك عدي وحيابه نقرر بيتشرب أهيد وحاكلو نقرر بيتشرب أكل مال اليتيم أقوم تحول هذا عنيتان كوضا وحاكلو نقرر بيتشرب قذف المحصنة قبل محصنة عفيفة أو دورسونا إلهي كحرا وفاحشي الزنا قلبي هذا ولي قد يمسكح ذا القلين إن الوزانية ترى هذه أما تهنتي أرنتا إن كبائر وين تاي أيو النبي ونو شيء يشرو نجرب يشرو سيدا كلو وحنا أمر يشري إلهي عبادتي سكلي إنا نعبدنا وأنه وحبا أن لو ذا شين عبادتي الربوب النمت كيس إلهي النمت ألوهية ديس هي أسماء ديس هي صفات كيس وهكذا أمر يشري الصلاة هي الزكاة هي الصونك أنت صرنا من أمر يشري خلاصة ينحر كان إخوتي في الله وقدنا لهلكم وحوي أعماشا لصور شيء غيردان من الإيمان بكميتاي سومنا صومرين صلاة وإيمان لغو إطلاقا سومنا صومرين النبي قردها يا أتدري ما أرتي أتدرون ما الإيمان بالله وحده ما قرنا إيسا وإرشادة الله إله إلا الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان انت صردان وسوتريي
وحاسو مرة الطهور شطر الإيمان إيمان كنسكي ويان طهارته إذن صدقي يا أماندي يا قرابة حريرينتا يا حسن الجوار يا محرمات كل قفو هذا يا وحاسو دن يا صلاة يا زكاة يا صونكي طمان تو waxay kamid yihiin maartay min al-iimaan bay kamid yihiin min al-iimaan bay kamid yihiin dhinaca kale hadaad fiirisi intan xadiidka lagu sheegay iyo intii kale aan la sheeginba intan xadiidka lagu sheegay dul istaagooda hadaan dul istaagno waa waxyaabaha maanta aad loogu baahan yahay oo aadna u yaraaday sidqul xadiid hadda runta aad bay u yaraatay hadda ama qowlka runta laga sheego ama ficilka runta laga sheego ama muuqaalkaadood ka run sheegti ama ictiqaadkooda ka run sheegtay aad buu u yaraaday adaa al-amaana amaanadu laba qaybood weeyaan amaanatullah amaana iyo xuquuq ilaahay uu kugu leeyahay iyo xuquuq bini aadamku ay kugu leeyihiin ilaaliskooda aad bay u yaraatay silatu raximka qaraabada oo la xidhiidhiyo tu dhow iyo tu fogba aad bay u yartay ilaa man raxima rabbuna mooyaan xusnul jiwaar jiiraanka oo la hagaajiyo muslim iyo gaal toona aan loo kala fiirin cidda jiiraanka kula waxa weeyaan waa xaq bay kugu leedahay ولذلك صادرت علماء مركز جيران كمراتبتيسا كهضايان جيران صدح درجو كلا ليه بيدان جيران صدح حق كوله هي جيران لبا حق كوله هي جيران هل حق كوله جيران كصدح حق كوله وانن جيران كذا ومسلم قرابنا اتين حق القرابه حق الاسلام حق الجوار صدح راسو كوله جيران لبو كوله هيو حويان ومسلم وانا جيرانك لكن قرابه كلمه marka xaqul jiwaari iyo xaqul islaam buu kugu leeyahay jiiraanka halka xaqulana waa jiiraanka waana gaal qaraabana ma aha muslimna ma aha qaraabana kulamo marka laakiin jiiraan buu kugu yahay xaqul jiwaar buu kugu leeyahay aad iyo aad bay maanta arinta u yartahay sidoo kale kaf maart al kaf an al maharim wad dima waxyaabaha muharramaadka oo qofku ka fogaado ama maal ha ahaado ama xuquuq bini aadam iyo cirda ha ahaado ama ha ahaado dhiig bini aadam oo la galaya ha ahaado inuu qofka muharramaadka ka fogaado ittaqil maharima takun a'bad an-nas wa xadiidkii Abu Hurayra oo nabigu muharramaadka Abu Hurayra uu ka fogow dadka kana ugu taqisan baad noqonaysaa sidoo kale fawaaxishta zinada waliba maanta aad bay u faaftay ayadoo camaliya zinadu galma kaliya lama yiraahdo zino indhuhu zina la yimaadaan gacmuhu zina la yimaadaan waad aragteen social media maanta waxa ka jira afxumida iyo zinada sida waqaax looga hadliba oo ma maarta loo qarinayn oo haweenkii gabdhihii xishoon jiray ay afka ku ballaarinayaan oo maarta wixii la mid tahay falanqaynayaan gogashi laga sheekeen iyo wixii laga sheekeen oo nin xaraam lisku galmooday laga sheekeen oo ayadoo amaliyan la sameeyay laga yaabo in la soo dhigaba waxaasoo dhan waxay ka mid tahay waxay ku tusinaysaa qofkaas islaamnimadkiisa in calaamad su'aal saaranta قول الزور با كميدا مقراتي بينالا اما هذا الكبنت اما مقراتي بينالا كميدا ان مقراتي بين فرتوا وكبائرته واوين حولها اغونتا ولا عنا كميدا خضورada waa kabaa'irta waaweyn gabadh muslimada oo muxsinada oo cafiifada oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xidhan inaad zina ku sheegti ayna waa kabaa'irta waaweyn bay kamid ilaahay kaliya in la caabudo oo loo shariig yeelin salaada oo la oogo zakada oo la bixiyo soonka oo lagu dadaalo intaasoo dhan baa acmaashan ka soo sheekaynay ee daacada min al-iimaan bay ka mid tahay muxsana marka dib ugu noqona lafdiga liya quraanka saddex macaani buu ku soo arooray muxsanaad mar ayagoo loo jeeda cafiifaad gabdho dhowrsoon oo zina iyo faaxisho ka fog marra muxsanaad waxaa la yidhahdaa xaraa'ir gabdhaha xorta ah marra muxsanaad waxaa la yidhahdaa tasawuj guurka gabadh reer la weeye maartay saddexdaa macaaniba wuu ku soo arooray marka qadful muxsana waxa weeyaan gabadha cafiifada ilaalinteeda ikhwati fillahi khulaasada iyo nuxurku xadiidku aad buu u balaaran yahay macnaha aanu ku soo ururinayna waxa weey iimaanku i'tiqaad ama carabka laga dhawaaqa kali wuu ka balaaran yahay al-iimaanu i'tiqaadun wa qawlun wa amalun bil jawarih saddexda qayboodba i'tiqaad qalbiga laga rumeeyo laga i'tiqaadiyo laga jazmiyo عربك التوحيد كلا قاعد واقع شهادتين كي هي أعماشي الله سمي مدة بدني جاء هي مدة مارت النية جاء هي مدة قولي جاء بالله سمي يزيد بالطاعة طاعة وكوكب عاو زيادة معاصينا وينقص بالمعاصي معاصي مركو قف كل ما دنا إيمان كيسو هوس بودعي طاعة مركو لي ما دنا إيمان كيسو كربوك
إذا شعب الإيمان جميع الأعمال الطاعات waxay ka mid yihiin min aliimaan buu ka mid yihiin waanu soo marray arrintaas ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tuso nugu nirsaaqa xaqa raacitaankiisa waxaan leeyahay marka ikhwati filaahi towxiid aad ku dhawaaqday keliya maartay haba keligii ma anfacahayo hadduusa camal saalixood daaca uusa wadanin sid camalkeennu ama iimaankeennu u kobco oo xaaraamtii waxaan oga istaagno daacada aanu badinno salaada sunnada aan badinno soonka sunnada aan badinno sadaqada aan badinno iyo wixii la midka ah cilmiga dalabkiisa aan badinno ilaahay baryadiisa aan badinno si iimaankeennu u kobco ilaahayna subxaanahu watacaala hana ilaaliyo hal mar baan xadiidka lafdigiisa akhrinhayaa alxadiidu 759 عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة وسؤال النجاشي رضي الله عنه لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصوم الحديث رواه أحمد والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.